dagaal qorsheysan oo ay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay gobolka Gedo gaar ahaan kuwa degmooyinka Balad Xaawo iyo Doolow ay ku qaadeen maleeshiyada al-shabaab oo deegaanada Caana Qumbow qaniyaala ka waday dhaca xoolaha dadka xoolo dhaqatada ee deegaankaasi ku nool. dagaalkani oo muddo saacadaha socday ayaa ciidanka u suura gashay in ay jabiyaan maleeshiyadka al-shabaab. howlgalkan ayaa ciidamadu ay ku dileen 6 ka mid ah maleeshiyada al-shabaab, 4 dhaawac ah waxayna ku soo qabsadeen gaari Suzuki ilaa 10 neef oo ari ah oo ay ka soo dhaceen dadka shacabka ay ku nool deegaanada miyiga fog. taliyaha ciidamada xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke oo hogaaminayay howlgalkan ayaa sheegay in ay ka war heleen tiro ka mid ah al-shabaab oo deegaanadaasi ka waday xoolo ay ku sheegeen sakaawaad balse ay tahay mid lagu baneystay dadka xoolahooda. taliyaha ciidamada nabad sugidda